laba qof iyo mida dadko laba qof iyo mida dadko laba qof iyo mida dadko laba qof iyo mida isku hooyadii hatayo dulmida ka wada yimid hal duridaya qoys mahadsantihiin waxaan marka hore mahad ilaaha leh mahad u celinaynaa raggii iyo dumarkii arrintan soo qabqaabshay waqtiga badan ku baxshay iyo intii kharajkooda iyo waqtigooda u hurtay iyo inta soo ajiibtay kulligiina waxaan idin leenahay shukran aad baa u mahadsantihiin. I want to introduce my brother, my friend Hassan Abdullahi Hassan Karateyo. He's going to be the MC and Khalif will be assisting him. Hassan, walaal ku soo dhawaad microphone-ka adoo mudan. Thank you. aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Cusmaan Dheere oo ah gudoomiyaha jaaliyadaheena magaalada Toronto ahaana jaaliyadihii ugu horeeyay ee lagu aasaasay Canada in badanna shaqada u qabtay jaaliyadaheena walaalayaal anigoo Xasan Cabdullaahi Cumar Karate ahna xiriiriyaha caawa barnaamijka Jubaland State oo uu ila xiriirinaya Khaliif Axmed Jaamac daafeedow waxaan marka hore idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dadweynahan gaaraya labada kun ku dhawaadka ee caawa isugu yimid Toronto waxaa laga yimid gobolka Ontario oo dhan baa laga yimid waxaa laga yimid gobolada stateska Mareykanka Buffalo New York dadka yimid baa jooga waxaa laga yimid Ottawa ayaa laga yimid waa midii aad sugayseen muddo badan in magaalada Toronto ay ka dhacdo dabaaldega loo dabaaldegayo Jubaland State of Somalia waxaa farxad noo ah oo dhammaanteen runtii aynu u wada riyaaqaynaa sida calamada aad haysaan iyo sawirada ka muuqata madaxweynaha Jubaland State Sheikh Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo madaxweyne ku-xigeenka Jubaland State Cabdullaahi Sheikh Ismaaciil Fartaag walaalayaal xafladani runtii waa xafladaha ugu qiimaha badan intii aan arkayay Canada khalqi intan isugu leeg ka soo baxeen waxaa jooga fanaaniinteena caanka ah ee qaranka Soomaaliyeed waa bari waxaa jooga fanaaniintii kale ayagu runtii masraxiyada aadka looga yaqaanay waxaa jooga Nakruuma waxaa jooga Kooshin iyo Cawaale oo asagu Ottawa ka yimid caawa jaanta iyo ciyaartu ma kala joogsanayso waxaan marka hore u yeerayaa oo barnaamijkeena aan ku furanaynaa aayadaha Quraanka Kariimka ah oo uu noo soo jeedin doono Shaakir Sagaar Ibraahim fadal bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad jubla hanolato ha israado hanolato Soomaaliya hanolato aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Sheikh Shaakir waxaan ku soo dhaweynayaa odayaasheena magaalada Toronto ahna runtii kuwa aynu mar walba wax ka qaadano hadday noqon lahayd dhaqanka hadday noqon lahayd sooyaalka taariikhiga
hadday noqon lahayd asluubta hadday noqon lahayd midnimada Soomaaliyeed meeshay maraysay waxaan u yeerayaa marka hore Xaaji Daahir. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. walaalayaal adeerayaal awowayaal giddigiin waan idin salaamayaa salaanta islaamkaan idinku salaamaya waxaynu u dabaaldegaynaa caawana isugu nimi inaynu u dabaaldegno Jubaland State of Somalia dadka sameeyay Jubaland of State waxaana leeyahay waynagu yara raajiyeen madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku sidii dawladda u dhisi lahaayeen had iyo jeer waxaanu leenahay goormay dhacaysaa wixii raagaa rag kuma sameeye ka rugsiiyaan ka roorre wasaaradii baanu u jeednaa gudoomiyaashii baanu u jeednaa dee wayna ku raajiyeen xoogaa waxaanu kaloo sabooraynaa oo kale anigu waan saboorayay idina way la wadaagtaa maan u malaynayaa gobol kasta oo Soomaaliya ah oo maamul samaysanaya waa sabooraynaa sharad waxa waa maamulkii la samaynayaa inuu cadaalad sinaansho hufanaan Soomaalinimo wax wada qabsi kala damayn in lagu salayo oo lagu dhiso. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آدي ayaad u mahadsan tahay Xaaji Daahir oo runtii odayaasheena magaalada Toronto
بالدكتور waxaan haddana u yeerayaa Cabdi Aadan Xasan Saylici oo ah qoraa ahna khabiir ku ah dhacdooyinka Soomaaliya ku soo dhawow Saylici bismillah xasan waa mahadsantahay odayaasha waxgaradka culimaadudiinka gabdhaha dhalinyarada aqoonyahanka dhammaan dadka sharafta leh barnaamijkan isugu yimid salaanta islaamka aan ku salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marka hore hadal dheer baan watay dadkuna waa badan yahay buuggaan dadkii soo diyaariyey khayr allaha siiyo yaan saddex arrimood ka taabanaya aan idhaahdo qarniga 20aad ee Soomaalida magaca Soomaaliya meel dheer buu gaaray aad baa loo bartay qarnigaas bilowgiisii iyo bartamihiisii iyo dhammaadkiisiiba saddex arrimood oo Soomaaliya ka dhacay baan taabanaya kow 1900 ilaa 1920kii Soomaaliya waxaa ka jiray dhaqdhaqaaqii ama kacaankii daraawiishta ee uu madaxda ka ahaa Sayid Maxamed Cabdillah Xasan Allahu naxariisto Sayid Maxamed wuxuu ahaa nin caalin oo diinta islaamka caalin ku ageesi ah wadani ah qisayar haddaan ka sheego taariikhda
markuu meesha kaga bilaabatay inuu gumaysi la diriro waxay ahayd sayid maxamed oo ka yimid dhulka carabta jasiiratul carab oo ku soo bartay dalka sacuudiga ayaa berbere ka soo degay qisadaas dad badan baa haya markuu yimidna askarigii ingiriiska hayo dekada joogay baa wuxuu weydiiyay canshuur wuxuu ku yiri adiga ayaa canshuur ka qaaday markaad halkan imaanaysa halkaas ay uga dhalatay inuu la diriro gumaysiga 20 sano gumaysiga la dirirayay markii dambena waxay gaartay in adduunka uu ka noqdo dhaqdhaqaaqii ugu horeeyay Afrika ee diyaarada lagu la diriro ingiriisku wuxuu ballan qaaday wax kasta oo bini aadamka naftiisa ku qanci karto nolosha adduunka dahab mushaar nolol uu ka diiday saasoo ku dhintay waxa ku xiga sanadka qarniga bartamihiisa qarniga 20aad dad badan oo odayaal halka joogana way hayaan taariikhdaas dagaalkii labaad ee adduunka intuusan dhamaan Soomaaliya niman dhalinyaro oo wax barta oo Soomaaliya ayaa isu yimid oo qabiil isugu imaanay oo la socotaan SYL markii hore ururku wuxuu ahaa SYC Somali Youth Club naadiga dhalinyarada Soomaaliyeed dad dhalinyaro oo wax barta oo isu yimid oo baraarugay oo arkay waxa Soomaaliya markaas ku jirto Yaasiin Xaaji Cismaan iyo Cabdiqaadir Sakhaawadiin iyo wad garanaysaa raggii asaasay kuwii noolaaday dawladii kacaanka markii dambe oo nolosha ay ku soo gaartay way xurmaysay oo waa laga warqabay kuwii dhintayna si magacooda u waaro waa la socotaan dadka halkan jooga iskuul caan oo xamar ku yaal loogu magac daray Yaasiin Cismaan dugsiga hoose dhexe dugsiga sare Cabdiqaadir Sakhaawadiin dugsiga sare Cismaan Geedi Raage dhamaantii waa la socotaan dhalinyaradaas waxay sabab u noqdeen in Soomaaliya gobonimo qaadato in Soomaaliya magaceedu saddexda waqtiba dunida oo meel fiican oo sharaf leh oo qiimo leh ka gaaray 20 sano hadda dhowr 20 sano oo soo dhaafnay haddana meesha aan joogno waa arkaysaa marmaleynaya haddaan inta uga gudbo arrintaas ujeedada barnaamijkan kulankan wuxuu ahaa inaan taageerno dawlad goboleedka Jubbaland hadal saddex qaybood aan sheegi doona ujeedada kulankan iyo xafladda oo taas ah in la taageero dad Soomaaliyeed oo isu yimid oo qabiil isugu imaan ayaa wax dhistay saddexdaas gobolna dad markii horeba waxay ahaayeen xiriir badan oo ka dhaxeeyo juqraafiga ka dhaxeeyay dhaqaale ka dhaxeeyay waxyaabo badan ba ka dhaxeeyay dawladda federaalka Soomaaliyana waxaan ugu baaqaynaa inay ogaato in dadka Soomaaliyeed ay iyaga ka go'do talado iyo go'aanka waayo nidaamka hadda lagu dhaqmo nidaamka Soomaaliya hadda lagu dhaqmo waa nidaam federaal ah wassalaamu calaykum warahmatullaahi I want ladies and gentlemen to welcome with me our dear Etobicoke North Member of Parliament. I call my sister, Dr. Christy Duncan. Assalamu alaikum. Hambalyu Jubilant. My brother Osman Mahatsinit. My brothers and my sisters, many, many congratulations on the birth of the state of Jubilant. I want you all to know that you are my dear family. You're not just friends, you are my family. And I want you to know I am always here for you. I love our community. I love your beautiful culture, the music, the dancing. I love the language. And I want you to know I am here for Somalia and also for the new state of Jubilant. I understand it's a beautiful state with international airports, international ports, 2 beautiful rivers, farming and ocean. So I want to wish new President Sheikh Ahmad Islam wonderful wishes. And tonight we say, Jubilant Hanalata, Somalia Hanalata, Canada Hanalata.
minute. وهاجاج وحنوجو حجيا شبلان هنولاتو هنولاتو شبلان هنولاتو كريستين هنولاتو شبلان هنولاتو وحنوجو حجيا هذا قادس فنانتي قرن كصوماليات نكروما oo ah heeskii calanka laba hees bay ku hormaraysa calanka iyo heeskii Jubbaland ay ku labadaas hees ayaa inagu soo foolay ku soo dhawow Nkrumah ha Jubbaland hanolaato ha guulaysato waxaan u yeerayaa walaashay Maryan Caafi oo jaaliyadeena runtii aad looga yaqaano waxqabadkeeda iyo taageeradeeda kana soo jeeda gobolada Jubbooyinka Maryan Caafi ku soo dhawow Bismillahir Rahmanir Rahim السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان ددوينها شرفت له حفلة دان اسوي مقروح دبدان وسلامنتهن سلام كبعدي وحن مهدنقو علينا يا قد غفر سمده حفلة دان قروح دبدان إنوسو أبابولي وقت بدن الجلية أد أيام هتسينه أنت صدقني كجذبه سيدو حصل أشياء أنا كمرين عافي وحنكم ده هاي بهوينتا جبلان ستيت أيام كو أبتر صدا وحنكم ده هاي بهوينتا جبلان ستيت waxaan leeyahay Jubbaland State ha noolaato ha jirto ha joogto hana israacdo waxaan u hambaliyaynayaa taageerayaa boqolkiiba boqol aan ku faraxsanahay reer Jubbaland dawlad goboleedka ay dhisteen oo ay u doorteen madaxweyne mudane Axmed Maxamed Axmed Madoobe waxaan u hambaliyaynayaa mar labaad madaxweyne ku-xigeenka mudane Cabdullaahi Fartaag waxaan kaloo mahad u dirayaa ummadda Soomaaliyeed cuqaashii odayaashii dumarkii intii nabadda jecleed ee ergooyinka intay isu tageen waqtigoodii ku
geliyey juhdiga badan geliyey si ay ku dhistaan dowladooda Jubbaland. Jubbaland waa dhisantay waxayna doorteen madaxweynahooda mudane Axmed Maxamed Madoobe iyagoo codkoodii boqolkiiba boqol ku ayidsan oo isku raacay oo si xalaal ah u doortay. waxaan kula dardaarmayaa ama xasuusinayaa reer Jubbaland waxaan la ku yaqiinay dad multicultural ah waxaan ugu baaqayaa reer Jubbaland waxaan ahayn dad multicultural ah waxaan la ku yaqiinay daris wanaag isjacayl wax wada qabsi isxaq dhowr intii wanaag ahayd oo aan lahayn waxaad moodaa wax yar inay mugdi geliyeen dagaaladii sokeeye ee muddada dheer ee socday ee ku habsaday dalkeena. walaalayaal reer Jubbaland waxaan idinku baaqayaa inaad iska saartaan cudurkaas yar ama mugdigaas yar ee ay noo keeneen dagaaladii sokeeye. waxaan idin leeyahay soo ceshada sharaftiinni multiculturalismkiinni isku xirnaantiinni wada shaqayntiinni istixgelintiinni. madaxweyne mudane Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe waxaan iyo madaxweyne ku-xigeenkaba waxaan ka codsanayaa in intaas oo wanaaga oo reer Jubbaland ay lahaayeen in loo soo celiyo wanaagoodii laguna hogaamiyo cadaalad sinaan iyo saami xaq ah iyo dulqaad iyo colaad la'aan. waa salaamantihiin. Jubbaland ha midowdo, Jubbaland ha noolaato, Soomaaliya ha israacdo, Soomaaliya ha israacdo. Salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبي وناكسن dadweynaha aadka u faraha badan ee caaw isku yimid xafladda Jubbaland. caaw waxa isku kaydarsamay laba farxadood. farxadda koowaad anoo reer Jubbaland ah inaan ka soo qayb gala xaflad saan u qurux badan oo dadweynihii reer Toronto ay ku sharfeen dowladda Jubbaland. عاشا محمد وحكا هذا بايوغا مدحوينا Jubbaland State كسو دبو عاشا محمد. Assalamu alaikum. Good evening, honorable guests, delegates, and the great supporters of Jubbaland. First and foremost, on behalf of the Somali community and myself here today, we give an extended congratulatory message to Sheikh Ahmed Madoobe for his successful election and inauguration as president of Jubbaland State. We also commend the people of Jubbaland State for conducting their affair in an inclusive, democratic, and transparent manner in accordance with the Constitution of Somalia. Sheikh Ahmed Madoobe won by a landslide, gaining almost 485 of the 500 votes, proving his leadership and is respected and admired by the people of Jubbaland. Moreover, we'd also like to congratulate Abdullah Sheikh Ismail Fartag for being elected as the vice president. The initiatives of creating Jubbaland State took root in 2009, when a common consensus began forming between the locals. There was a shared desire to oust the Al-Qaeda-linked Islamic militant group Al-Shabaab. Ahmed Madoobe was a Ras Kimboni leader working towards restoring peace and security. He was able to take part in the initiative of liberating the region from Al-Shabaab militants in September 2012. The Jubbaland region consists of 3 sections: Lower and Middle Jubba and Gedo. They are a combined area of 87,000 square kilometers and have a total population of 1.3 million people. Due to its natural resources and location, Jubbaland has the potential to be one of Somalia's most richest regions, but chronic conflict has kept it unstable for over the past 2 decades.
The city of Kismaayo is a lucrative prize for various warlords who battle for its control following 1991 after the fall of President Mohamed Siad Barre. The federal government should strive towards commitment to the protection of political independence, territorial integrity, and sovereignty for the unity of Somalia. The federal government of Somalia is mandated to represent the different parts of the country. Therefore, the only way we can attain peace is through the strong reconciliation and respect towards the different states of Somalia. The state of Jubaland very well recognizes the federal government and seeks its support for leadership. There is no quick fix solutions in Somalia. The issue at hand is very complex and sensitive. We have to be pragmatic and realize the ills of our society cannot be solved in one day. Jubaland state is wanted to restore law and order, and they are committed to protecting the rights of minorities in the state. Furthermore, they are an economically feasible and sustainable entity, and frankly, the people are ready to live freely from violence, terrorism, and warlordism. Born and raised in Canadian soil for most of my life, I'm very captivated in the idea of one day going back to Somalia and in some way contributing to the advancement of the country. It is important that the younger generations are encouraged to become revolutionary thinkers, ultimately building a country based on justice. I personally hope to see the collaboration between Jubaland and the federal government with the interest at a national level. It is with great pride and happiness we offer our support towards Sheikh Ahmed Madhobe. Inshallah, with his leadership, we can move forward for an improved Jubaland and a stronger Somalia overall. This moment marks the opportunity for all of us to contribute to the development, and it's our time to be a part of history and offer the skills we've developed to create a stronger and stable state. Jubaland ha noolaato. waxaan may ku soo dhaweynaynaa fanaankeena Cawaale. heesta ugu horeysa oo qaadi doona waa heestii calanka. calan yaho buluuge xidigta cadaanki dhexda kaga cabirantee cisigii xorriyadee lixdankii ku caanbaxo wallaahi bilaahi marbaad curano rabbi soo ceelin cududaado sida curubtiyo ubax ordinaada carfi doontaa bafuridu kuwada caagar noqon colaad laga fayooba insha Allah marqad curano rabbi soo ceelin cududaado sida curubtiyo ubax ordinaada carfi doontaa oo cisigaagii markaa soo celin cirkuwii bafuridu kuwada caagar noqon colaad laga fayooba insha Allah marqad curano rabbi soo ceelin cududaado sida curubtiyo ubax ordinaada carfi doontaa وعشاء ماني عليو عالكو إدل عليو نقاعي زيني عليو عدكاقو شقيني عليو عرضا دهبك عليو شدالك عميرا عليو عيني الصابحي عليو وعايرك لقبسني عليو وعشاء ماني عليو عالكو إدل عليو نقاعي زيني عليو عدكاقو شقيني عليو عرضا دهبك عليو شدالك عميرا عليو عيني الصابحي عليو وعايرك لقبسني عليو والله بالله مرضى عرانو ربي soo ceelin cududaado sida curubtiyo ubax ordinaada carfi doontaa insha Allah marqad curano rabbi soo ceelin cududaado sida curubtiyo ubax ordinaada carfi doontaa
fanaaniinta qaranka waa mahadsan yihiin jubbaland ha guulaysto aniga personally waxaan Soomaaliya u kala qaadaa inay laba tahay 1960 markay xorriyadda qaateen waxaa u buddhigay SYL after 20 sano dawlad ah iyo 10 sano kale waxaa dhacay dagaalkii civil war ahaa dawladda hadda jirta waxaa u buddhigay madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Axmed asagaana u suurtageliyay in dawladda ay xamar timaado xamar oo kala qoqoban oo warlords ay kala gogoosteen inuu ku guuleystay inuu yimaado villa Soomaaliya oo dhax seexdo kadib waxaa madaxweyne noqday Sheekh Shariif Axmed asagana wuxuu ku guuleystay asaga iyo Professor Cabdiwali in ay dastuurka Soomaaliya ee Xasan Sheekh lagu soo doortay inay iyagana u buddhigaan waxaan u sheegaynaa madaxweynaha in dastuurka uu meel fiican ku keedsan yahay uu ku jiro gacanta madaxweyne Faroole yuunu isku dayin inuu wax ka bedelo maxaa yeelay nuqulkii rasmiga ahaa wuxuu yaalaa Garowe Soomaalinimaduna waa fiican tahay madaxweynaha xil weyn baa saaran midda koowaad waxaa saaran in caasimadii Soomaaliya uu ku soo celiyo sharaftii iyo qiimihii ay lahayd uu ka bixiyo gacanta reerka kaliya oo ku dhagay oo hantidii dadka hantidii dawladda qaatay oo u qaatay inay iyaga leeyihiin marka mas'uuliyadaas weyn saaran yuusan ku soo waqtigiisa yuusan ku lumin Jubbaland waa dhalatay waa joogaysaa waana soo jeednaa oo mar dambe mana lagu siraayo magaca Soomaaliya haddana waxaan ku soo dhaweynayaa adeer Cusmaan Xaaji Nuur السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaa jira waa salaamantihiin khalqiina meeshaan isugu yimi rag iyo dumar qof weyn iyo qof yar waa salaamantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maamulka anigoo hadalkaygu kama baxsanaanayo maamulka Jubbaland haddaan wax ku daraayana waxaan ku daraanayaa lamaanadeeda Puntland meel kale caawa u gudbi maayo waa gudbi karaa laakiin intaasaan ku ekaanaya haddii alla idmo marka Axmed Madoobe kama uusan soo bixin duurka waa nin soo halgamay oo muddo ku soo jiray hawshatan maanta aynu ku faraxsannahay inuu qabto waa alxamdulilah haddii ilaahay ku simay macnuhu maaha abaalgudkiisu in la yidhaaho Jermayn baa tahay ka shaqay maya wax ka durugsan baa jira waddanka Vietnam markuu Mareykanka la diriray 15 sano buu Ho Chi Minh wuxuu u xarbiyay inuu Saigon galo markii uu xoreeyay muddo yar buu noolaa wuu dhintay marka Hanoi iyo Saigon labadiiba markii la isku daray waxa loo bixiyay Ho Chi Minh City Axmed Madoobe wuxuu caawa istaahilaa anigoo la siyaasad ka warqabaan ahay wuxuu istaahilaa in Kismaayo hooy la yiraaho Axmed Madoobe City taasu rag bay u taalo rag hawsha iga faradhuudhuwan baa meesha jooga saana ku xeeran laakiin anigu tala ahaan intaasaan leeyahay dadka faraya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu haddana microfonka waxaan kusoo dhaweynayaa halgamaaga weyn Cabdinaasir Cali Jooma habeen wanaagsan mudanayaal iyo marweyn horta habeen caawa waa habeen farxadeed waa habeen aan u dabaaldegayno dhismaha dhulkeennii hooyo Jubbaland State horta intaanan gulin khudbadayda waxaan rabaa inay hal kurig noo noqoto anigu waxaan leeyahay Jubbaland idinkuna waxaan leedahay guul Jubbaland
Jubbaland maxaad aydan maqlayeen maxaad miyaa la cashir caawo Jubbaland diyaar ma u nahay dadkeena iyo dhulkeena inaan dhisno Jubbaland aad iyo aad baad mahadsantihiin marka hore waxaan u hambalyeeyaa madaxweynaha state Jubbaland Axmed Madoobe iyo Cabdullaahi Farataag ku-xigeenkiisa waxaan leeyahay hambalyo noolaada Soomaaliya ceel dheer bay 22 sano ku dhacday waxa kaliya oo looga soo saari karaa waxa weeye nin walba inuu xaafadiisa dhisto ninkan xaafadiisa dhisan karin waa ku caawinaynaa laakiin noo ogolow xaafadana inaan dhisano Soomaaliya markii 22 sano ay ku jirtay ceelka waxaa dhismay Puntland markii Puntland ay dhisantay Puntland ma noqon meel kaligeeda waxay raadsay inay Soomaaliya dib u noolayso ninka madaxweynaha Soomaaliya maanta ka Xasan Sheekh nidaamka iyo systemku ku yimid waxa la yiraahdaa garawa wan garawa tu lama yiraahdo jawhar wan jawhar tu laakiin Xasan taa waa iloobay wuxuu iloobay nidaamkii soo doortay iyo baarlamaankii soo doortay iyo shacabkii soo doortay oo Soomaaliyeed inuu qabiil soo doortay sidoo uu dhaqmayo wuxuu u dhaqmayaa in qabiil soo doortay laakiin anigu still Xasan rajan ka qabaa because Soomaalnimo rabaa qarankii Soomaaliyeed baa rabaa inuu dalku dib u soo noolaadaan rabaa waxaan u dirayaa maasad Xasan Sheekh Jubbaland waa qorax soo baxday ninago uma dhigi karo halkii dhagan muxuu ahaa Jubbaland Xasan Sheekh oo dowladda iyo ku dhicin Jubbaland Soomaaliya waxa laga baahan yahay inaad dhisto Soomaalidu waxa ku maamaadaa ninkaad kabaha ka tooranaysa kabiisa laarka Xasan oo hadaa jawhar iyo balcad iyo warshiq dhisi lahayd markaas waxaan oran lahaa wallahi ninkan waan andhageysan wuxuu wado laakiin gurigaagana dhisi maysi kaagana waxaan rabtaa inaan dhisan taa ka yeelmayno message-kan waxaan u dirayaa dadka baarlamaanka noo fadhiya haddaan nahay Puntland haddaan nahay Jubbaland iyo haddaan nahay Khaatumo message-kan ii dirina waxa weeye haddiinaan dadkiina u adeegayn oo waxa jira aadnan ka dhaqdhaqaaqayn haddaad u joogtaan Muqdisho mushaar dee annagu waa inay sidina mushaarana soo baxa dadka ay ku badalaynay waxaan kaloo caawa idin sheegayaa dadkiina halkaa isugu yimid reer Toronto Jubbaland laba waxyaalood bay kaga baanta inaad aqligiina iyo cilmigiina geysaan inaad maal gashataan inaad taageertaan caawa inteena waxaan isugu nimid inaan dhisno dhul Soomaaliyeed ma dagaal baan u nimid waxaan u nimid inaan dhisno Soomaaliya sidii kale lagu dhiso waxa weeye bulkeeti in nin walba dhisto xaafadiisa aan isu nimaadno meel dhex isugu nimaadno saasay Soomaaliya ku nimaadaan saas baa loo leeyahay dowladda federaalka ee Soomaaliya ninkii taas diidanow waxaad u daleedahay ma garan karno marka caawa message-keenu waxa weeye Xasan Sheekh hurdada ka kac ogow Soomaaliya waxa weeye federal Soomaaliya nin walba xaafadiisa ha dhisto aan isu nimaadno dhisa xaafadaada iida xaafadayda ugu dambeyntii waxaan leeyahay Soomaaliya ha noolaato ha israacado hal ku dhigana waa maxay Jubbaland ha israacado haddana waxaan u yeerayaa saaxiibkay nin reer Kismaayood ah reer Kuda ah
reer juula jawaay ah master cumar mahadi diini السلام عليكم هرت فاتحة مرنا فاتحة السلام عليكم معه الحمد لله مدحوينها جبلان جبلان كسمايا معناه هذا وامحا قف كسا ملك كسمايا ملده كسيما تشايو كسيما تشايو أباجون أما مجنغو قف دي له حافظ الصومال كسمايا كو لغو بلا مجنغو على ده مجنغو اسمه كسا أباجون واسمه كسمايا أنا قال يكوري ما دت كلام قف البمحلة كسمايا أنا اللي يقصد ده وإسكا سينا أنا اللي يقول ماذا كسمايا هذا مدحوينا هرتا أحمد مذوي مدحويني ما هو يستاهله ميل والبمحل بيهجر دونات ميل والب دولة فريد يا خف البصاص وليهجر محيو مليان جرى كسمايا دولة إنا سمين كرن مركا أن سمين وخف والبو هذا وكسمايا ربا خف والبو كسمايا ربا هذا أنا محن ربا لي كورسو دقة وإنا لقى ديو دوغا مقالة يو وزير كالوميسي بدأ شغال هذا بدأ باجون هدان هاي جيل واتقنا اسطنبول ميل لدو اسطنبول خفكي قرنا اسطنبول ميل لدو باجون لقطوا أجرا اسطنبول لدو لكن محكو بدلنا هاي بدأ يا وزير كبدأ أنا للسيوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا يوم زي عمر مهدي diini oo ah ururka baajuunta ee Canada oo asagu runtii si wanaagsan u hadlay mar labaad shacabka loo tumo runtii waxa la soo gaaray xilligii ay dadka waxgaradka iyo aqoon-yahanada iyo ay hadlayeen waxaan u yeerayaa General Cabdiraxmaan Khaliif Dhicis oo aad wada garanaysaan General ku soo dhawow السلام عليكم marka ugu horeysa salaanka bacdi aad waxaan ugu mahadnaqayaa shacab weynahan sharafta badan ee quruxda badan ee caawa soo camiray halkan aad baad u mahadsantihiin waxaa kaloo mahad mudan kooxdii inoo abaabushay shirkan runtii aad iyo aad bay u mahadsan yihiin guddigii xasan cabdulaahi cumar karate iyo gabdhihii la shaqeeyey iyo khaliif iyo guddigii arrinta soo abaabil oo dhan iyana aad bay u mahadsan yihiin jubbaland baan odhanay ha noolaatay ka daba dhaha jubbaland wax badan baa laga sheekeeyey anigu taariikhdaa dib ugu noqon maayo kismaayo waxay tahay iyo taariikhdeeda aad baa looga sheekeeyey ilaa qarnigii 18aad iyo wixii ka dambeeyey dad baa taariikhdeeda haya waa laga sheekeeyey anigu waxaan ka hadlayaa wax yar waxay wuxuu badanayaa mahadnaq fara badan horta jubbaland way dhalatay masal baan siinayaa ilmuhu canuga hooyada hadduu ka yimaado ma lagu celin karaa waa maya jubbaland way dhalatay dib nooma noqonayso waxaan u yeerayaa hodan axmed xaaji oo noo tirinaysa tix buraanbura oo ay tirisay abwaanadda sahre xaaji xasan ku soo dhawow hodan martida sharafta leh oo madashan isugu timid halkan waxaan ka tirinahayaa gabay ay soo aliftay abwaanadda rug cadaaga ah sahre xaaji xasan
weligay masrax ma soo istaagin laakiin waxa caawi keena waa jaceylan Jubbaland u qabo Ilaahay amarkiis Jubbaland doorsato dagaalkii la iska daa ee degmada nabad bay u taal oo dadweynuhu waa heshiis oo dayaafaad baa la dhigay dareenka Allow ka hay aamiin raxmad baa noo daado xoolihii baa dararay oo dabarkii iyo subagii ciirtii baa dabataa oo darduur baa lagu jiraa dalaagii baa noo baxo dalankii naga hariyo waxaan doonaan cunaa oo malay baan dabanayaa dareenkayga Allow ka hay duqowdi maamulka iyo amniga oo dabacsanayn dadkan Jubbaland ku nool dadaal bay wada hayaan oo dantooday garanayaan dareenka Allow ka hay damaashaad iyo cayaar dalxiis baa lagu jiraa oo danta loo heelan yahay Allow madaxdayada daa dariski soo ciidamay iyo dadaalkii Kenya iyo siday noo daajiyeen iyo dalkoodii noogu hayeen miyeedaan dahab garanayn abaal door ah igu maqan oo deynta maba gudi kare waxaan ugu diiqayaa ammaantooda iyo duciye iimaan weligay inaanan dulmin dareenka Allow ka hay President Uhuru Kenyatta viva Jubbaland viva Somalia Jubbaland ha noolaato Sheikh Ahmed Madoobe ha noolaado viva Puntland ودن أحمد جامعات بمحسن تهاي ما أنت حدنا حمصو دوينا يا عبد الرزاق سويني أو إكس بارلمنتاري أو فدرال صوماليا بسم الله الرحمن الرحيم أيان يدين سلام يا ددوينا هينن سيدا وناكسن وصو عمري مدشة رجيها وينبا وحن كلو صلان يمهدو علينا إن الله لي أنتي سواء جالسنتي حفلة دن قروح بدن أنت كدب هل كان وحيلو سجون نمي لبا الريموت أرنت كواد وحويان إنه تاجرنا وشعورتنا كموجنا ما ملقبلاتك Jubbaland ay isugu tageen dadka Soomaaliyeed ee ka tirsan saddexda gobol ee uu ka kooban yahay maamul goboleedka Jubbaland si aynu shucuurteena uga dhabayno oo u dirno fariin ummadda Soomaaliyeed mustaqbal ugu jiro waa in aynu ka tala bixinaa wixii talo iyo tamar iyo hadal iyo cod intaba inaynu kula soconno waa inaynu ogeysiinaa iyaguna ay ku shaqeeyaan waxaanu qabnaa ama waxaanu aaminsanahay waanu si buuxda u aaminsanahay taageeridda maamulka Jubbaland ee ummadda Soomaaliyeed ay sida wada jirka ah u dhisteen Jubbaland qof ma leh reer ma leh group ma leh ummad Soomaaliyeed oo dhulka wada leh oo uu ka dhaxeeyo dhulka iyo deegaanku ayaa wada leh maamulkoodana iyagoo si sharciga waafaqsan iyo dastuurka qaranka Soomaaliyeed ku dhistay waxaanu qabnaa cid allaale iyo ciddii maamulkaas sida wada jirka loogu tashaday ee labada sanadood iyo dheeraadka soo socday ciddii ka hor timaada inay tahay cid qarannimada Soomaaliyeed duulaan ku ah kana soo horjeeda dastuurka Soomaaliyeed waxaanu qabnaa oo aanu aaminsanahay inaan cid gaari lahayn dhulka Jubbaland ee uu yahay dhul Soomaaliyeed oo la wada leeyahay nin laga xigaana aanu jirin nin lagu caburin karaana aanu jirin nin wax uu leeyahay laga riixi karaana aanu jirin waxaanu aaminsanahay oo aanu aaminsanahay cid allaale iyo ciddii ka doonaysa waxaan jirin ama sharci darro ku tilmaamaysa ama leh looma dhamma maamulka Jubbaland inay tahay cid iyadu meesha soo gelinaysa waxaan ku jirin oo wax kale ujeedadoodu ay yihiin waxaanu fariin u diranaa madaxweynaha dawladda Soomaaliyeed
waxaanu qabnaa weli taageeradu way taagan tahay laakiin aaminka iyo taageeradu way lumayaan haddii ay halkaa arrintu sii dhaafto waxaanu leenahay si taageerada aanu u buuxino wixii xumaaday ama dhinacaaga laga tirsanayana aanu annagu dib u liqno ka noqo mabaadida iyo arrimaha aad aaminsan tahay taageerna dadka reer Jubbaland ee maamulkooda dhistay ee Soomaaliyeed waxaan kaloo fariinta labaad ee madaxweynaha Soomaaliyeed aanu u diranaa ay tahay dastuurka Soomaaliyeed waa dastuur ummadda Soomaaliyeed leedahay adduunyadu waxay heshiis ku tahay in sharciga iyo cidda wax qabanaysa bini'aadanka wax qabanaya iyo sharciga ay wax ku qabanayaan in sharcigu horeeyo haddii aan sharcigu horeyn ee la horeysiiyo qofka wax qabanaya qof waliba wuxuu doonuu samaysan lahaa ama uu yeeli lahaa sharciga ayaa kaa horeeyay madaxweyne dastuurka kaa horeeyay isagayna tahay inaad raacdo haddii aad raaci weydo waad ka baxday wixii la isku aaminay waxaanu kaloo aan rabaa halkan ma rabo inaan ninka odayga ku fogaado waxaan rabaa inaan fariin u diro madaxweynihii hore dawladdii carta waqtiga anigu aan dawladdiisa kaba tirsanaa cabdiqaasin salaad xasan oo aan dhageystay hadalkiisii waxaan qabaa inaanay ahayn inuu kaalinta halkaa ka gala maanta inuu sharci darro uu taageero maadaama ay ahayd madaxweyne uu ahaa madaxweyne Soomaaliyeed oo dalka iyo dadka Soomaaliyeed soo maray inuu maanta waxa ka dhiman xasan maadaama uu experience badan u leeyahay dawladnimo in badan dawladii hore ku soo jiray kuwii dambe iyo burburkii wax ka soo qabtay inuu tilmaamo oo xasan u tilmaamo wixii ka khaldan laakiin inuu ku dhiiri geliyo sharci darrada iyo dastuurka uu ku gafayo ma nanfilay waxaan kale oo ma rabo inaan hadalka dheereeyo waxaan jeclahay in odayaal badan oo experience badan u leh talada ama halka soo fadhiya ama halkan soo fadhiya intaba hadalka wax laga siiyo waxaan kale oo rabaa inaan fariin u diro laanta VOA the Voice of America oo aad moodo in ay hadeer ku shaqayso qabiil laanta af Soomaaliga ee dawladda Mareykanka waxa leh ummadda Soomaaliyeed haddii ay ku shaqayn weydo si loo mid yahay ama si u dhaxa ummadda Soomaaliyeed ay ugu shaqayn weydo waxa ummadda u furan in la dacweeyo in runta loo sheego in cidda maamusha VOA laga dacweeyo loona sheego inaanay Soomaali dhex u ahayn kuma fogaanaya hadalka odayaashan jaaniska siinaya waxaan idin leeyahay taageero wacan madaxweynaha Jubbaland Ahmed Mohamed Islam Ahmed Madoobe iyo General Abdullahi Sheikh Ismaaciil waxaan leeyahay si aad u guuleysataan fariintaan u dirayaa waxa weeye si aad u guuleysataan waxaad samaysaan inaad ummadda u ahaataan dhex Soomaalinimo ugu shaqaysaan cadaaladda ilaalisaan idinku dul qaadataan waliba idinku cidda aad ka soo jeedaan oo aynu inteenuba isla garanano aad wax badan uga tagtaan ummadda kale ee Soomaaliyeed intaasaan iyagana u diraya wabillahi tawfiiq